maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ciidamada kala duwan ee qaranka ayaa halkan oo ah xarunta maamulka gobolka Togdheer waxay ku qabteen shir jaraa'id oo ugu tacsiyadeynayaan Allah u naxariistay badhsaabkii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleeye oo ku geeriyooday wadanka Turkiga waxayna dhammaantood tacsiyo u direen qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxay marxuumku ehelkii qaraabadii iyo bulshada reer Burco oo uu ahaa gudoomiyahoodii waxayna Allah uga bariyeen inuu janno fardowsa ka waraabiyo waxaana kamid ahaa hadaladoodii waxaan taasi tiiraayo leh aan la wadaagaynaa gudoomiyihii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo xalay ku geeriyooday dalka Turkiga taasi waxaan halkan uga direynaa tiiraanyo badan xambaarsan awlaadii iyo xaaskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo reer Togdheer iyo reer Burco iyo reer Soomaaliland dhammaanba intii uu ka baxay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto marka hore halka waxaan taasi tiiraya looga direynaa qoyskii iyo qaraabadii ehelkii asxaabtii Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan maanta halkan taasi tiiraya looga direynaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo xalay ku geeriyooday dalka Turkiga waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt geeridu waa xaq waana la wada dhimanayaa waana lagu kala horeynayaa waxaan halkan taxsiib uga direynaa dhammaan eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii gudoomiyihii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxaan halkan maanta taxsiib uga direynaa gudoomiyihii gobolka Xamse Maxamed Cabdi oo xalay ku geeriyooday wadanka Turkiga lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxaan taxsiib uga direeyaa tiiraayo leh Xamse Maxamed Cabdi gudoomiyihii gobolka Togdheer oo ahaa nin aad iyo aad u eedo badan geeridu waa xaq laakiin milga wacan iyo taariikh wacan ayuu dalkiisa iyo dadkiisaba kaga tegay runtii nin dhalinyaro ah buu ahaa taxsiib uga direynaa gobolka Burco Togdheer Xamse Walaaleeye Xamse Maxamed Cabdi waxaan ka tacsiidinayaa ehelka qaraabada gobolka Togdheer oo dhan waxaan halkan tacsiib uga direynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii oo aanu ka mid nahay geeridii ku timi marxuum gudoomiye gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi halkan waxaynu tacsiib tiiraanyada uga direynaa gudoomiyihii gobolka Togdheer oo xalay ku geeriyooday dalka Turkiga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaynu isugu nimid inaynu tacsiino geeridii ku timi gudoomiye gobolka Xamse Maxamed Cabdi waxaynu halkan tacsiib uga direynaa gudoomiyihii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Xamse Maxamed Cabdi gudoomiyihii gobolka Togdheer waxaan tacsiib tiiraanyada u direeyaa Allah u naxariistay marxuum Xamse Walaaleeye waxaan Ilaahay weydiinaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinaa inuu Ilaahay qowlka wanaagsan ku sugo inuu Ilaahay u naxariisto dhammaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan buu ka baxay Xamse Maxamed Cabdi marxuumka waxaan Ilaahay uga barinaynaa inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo waxaan leenahay Xamse Maxamed Cabdi qof wanaagsan buu ahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto ka tacsiinayna ummadda Soomaaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Togdheer gaar ahaan waxaan shaqaalihiisii xarunta gobolka Togdheer ka tirsan dadkii aadka ula shaqeyn jiray soo dhawaabaan oo ahayn gudoomiyihii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleeye oo ku dhintay wanda gadadiisa aniga ku hadlay afkii shaqaalaha xarunta gobolka tacsiib tiiraaya la direynaa dhammaan shaqaaluhu sidii gala siman yahay Allah u naxariistay marxuumka ayaa baryihii u dambeeyay xaalad caafimaad ahaaneed u yaalay qaar kamid ah cusbitaalada ku yaala magaalada Hargeysa waxaana maalintii shalay u dambeysay loo qaaday dalka Turkiga halkaas oo ku geeriyooday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Maxamed Wardi TV-ga qaranka magaalada Burco